Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada muuqaal cusub. Caawo waxaan qaadanaynaa faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo kabajka. Waxaan ku tilmaamaynaa faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo kabajka. 10 faa'iido ayaa laga helaa maadada la yiraahdo ama geedka kabajka la dhaho. 1. Wuxuu ka caawinayaa hagaajinta caafimaadka maskaxdaada. 2. Kabajku wuxuu ka caawinayaa nidaaminta cadaadiska dhiigga. 3. Kabajku wuxuu ka caawinayaa dhimista miisaankaaga. 4. Kabajku wuxuu ka hortagaa noocyada kala duwan ee kansarka sida kansarka caloosha, kansarka malawadka, kansarka kaadiheysta, kansarka qanjirka iyo wixii la mid ah. 5. Kabajku wuxuu ka gacan siinayaa ama gacan xoogan ka geysanayaa ama uu geystaa maadadaas kabajka la yiraahdo hagaajinta dhibaatooyinka la xiriira wadnaha. 6. Kabajka wuxuu hoos u dhigaa heerka kolestaroolka ee jirka. 7. Kabajka wuxuu kor u qaadaa habdhiska difaaca jirka. 8. Kabajka wuxuu horumariyaa caafimaadka aragga. Liyuutinka ku jiro kabajka ayaa waxaa kor u qaada caafimaadka aragga ee loo yaqaano lutein ay weheliso antioxidant. Sidoo kale kabajka waxaa loo yaqaanaa in ay si fiican u tafatirto ama u kala dheefshiido synapsinta waxayna ka ilaalisaa ratiinka falaqa cadceedda indhaha. Sidaas darteed indhaha wuxuu ka saarayaa fiishashka iyo dhanxanaga ama dhaxalka ee ka soo baxo indhaha. 9. Kabajku wuxuu horumariyaa ama kor u qaadaa caafimaadka maqaarka. Kabajka wuxuu qani ku yahay fitamiin C. Nafaqadani waxay xoojisaa soo saarista kala joojinta iyo borotiinka qaab dhismeedka kuwaasoo soo caawiyo maqaarka ay bogashada nabarada leedahay. 10. Kabajku wuxuu wanaajiyaa habdhiska dheefshiidka jirka. Halkan ayaan kusoo koobaynaa cashirkeena. Tusaale FG haddii aan ka hadlo dhibaatada uu leeyahay kabajka, dadka qabo hypertension ama HTN-ka iyo diabetiga ma isticmaali karaan kabajkan. Wabilaahi towfiiq. Is aragti dambe xiiso leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.